warar dheerad ayaa ka soo baxaya weerar qaraxyo ah oo ciidamo ka tirsan kuwa Kenya lagula eegtay deegaan u dhow Magalada Gaarisa ee dhulka gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Kolonyo ka tirsan Ciidamadaasi Kenya ayaa qaraxa miinada nooca dhulka lagu aasoo lagula eegtay xilli ay marayeen inta u dhaxaysa deegaanada saddex goosa iyo amaamu oo u dhow Magalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi waxaana warar ay ku qoreen baraha ay ku leeyihiin internetka ay ku in ay gubeen mid kamid ah Gawaarida Ciidamada Millateriga Kenya isla markaana uu jiro khasaare ka dhashay gaarigaasi ay gubeen. Ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha Ciidamada Kenya ee Gobolka Bari oo ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi waxaana uu ku soo aadayaa xilli Dowladda Kenya ay xirtay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale Kenya ayaa maalmo ka hor soo saartay digniin ku aadan in ay jiri karaan weeraro xarakada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya iyadoo oo sheegtay in ay ka feejigan yihiin dhinaca Al-Shabaab weerar kaga yimaada hase ahaatee uu dhacay weerarkani.